saaxiibayaal subax wanaagsan. Aniga waxa ay tahay subax, idinkana xilli kasta oo idin tahay wanaagsan. Soo dhawaada, maanta waxaan u socdaa safar dheer Toronto ilaa Ottawa, caasimadda dalka Canada. Sida caadada ahba waxaan subaxan saaka aan ku bilaabayaa quraacdeeda. Waxaan halkan ku samaysanayaa quraac fudud oo 3 xabbo oo slice ah iyo ukunteeda aan rabaa in meeshan ku fidsado. Quraacdu waa quraac iska fudud, qabanaya safar dheer. Safarkeygii ugu horeeyay ee aan uga baxo magaaladan Toronto. Markaan imid ilaa hadda weli meel kale ma aanan bixin. Waa safarkeygii ugu horeeyay, waxaan ku tagayaa caasimadda Ottawa. Sida caadada ahna inta aan ka bixin waxaan diyaarsanayaa quraacdeeda si aan u helo tamar iyo awood safarka dheer. Waxaan samaysanayaa 3 xabbo rooti ah iyo ukun eedan slice ah oo dhexda ka gelinayo. Quraacdeeda saan isla dhacayaa, kadibna waxaan bilaabayaa safarkeyga. Hadda waxaan ku jiraa diyaarinteeda. Safarka aad u dheer yahay. Waxaan halkan ka raacayaa bas 2 tareen ayaan ku kala bedelinayaa inta aan ku socdo magaalada Toronto inta aan ku jiro. Kadibna waxaan tagayaa stationka Union, halkaasaan ka qaadanayo tareenkeyga haddii ilaahay ku roon yahay la yiraahdo Fear Rail. Waa markii ugu horeysay aan safar uga baxo Toronto, sidoo kalena waa markii ugu horeysay oo tareen aan u raaco magaalo ka magaalo. Safarkeygan wuxuu socon doonaa haddii ilaahay idmo 5 saacadood iyo xoogaa daqiiqada ah. Adigu wuxuu isku jiraan 550 kilomitir. Halkaas ma jirto cid iga horeysa ama cid aan ka aqaanaba magaalada Ottawa, sidoo kalena ma jirto cid ila socota. Waa tijaabo aad u adag. Dadka qaarkood oo wheelchair-ka haystana tijaabada maba u bareeraan, laakiin aniga waan istijaabinayaa. Maaha markii ugu horeysay ee aan safar dheer u baxo oo safar dheer hadda koor 2024 aan ku aaday magaalada Muqdisho anigoo keligay ah, wheelchair-keyga wata. Inkastoo diyaarad aan raacay, haddana cid ila socotay ma jirto. Aniga iyo ilaahay iyo qolada diyaaradda Turkish Airways ayaan ka raacay magaalada Toronto. Transit waxaan ku sii maray magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Safarkaas oo ahaa safarkii ugu dheeraa ee aan keligay safro. Hadda laakiin uu ka duwan yahay safarkani. Waxaan qaadanayaa tareen, waxaan sii marayaa meelo badan oo qurux badan haddii ilaahay ku idmayo. Hadda waxaan dhamaystay quraacdeydii inaan diyaarsaday, waan dhamaystay. Haddana waan bilaabayaa haddii ilaahay ku idmayo. Waxaan hadda soo gaaray oo aan joogaa Kipling Station. Waxay ka mid tahay saldhigyada ugu muhiimsan ee ku yaala galbeedka magaalada Toronto. Kipling Station waxaa la furay sanadkii 1980, waana saldhigga ugu dambeeya ee qadka TTC Line 2 Bloor iyo Danforth. Kipling Station waxay isku xirtaa tareenada TTC, basaska magaalada iyo adeegga Go Transit, taasoo ka dhigaysa xarun aad muhiim u ah dadka u socdaalaya gudaha Toronto iyo magaalooyinka kale ee gobolka Ontario.
halkan waa meesha uu ka bilaabanayo safarkeena. haddana waxaan ka qaadanayaa meeshan tareenka line 2 oo waxaan raacayaa ilaa 14 stop. meesha la yiraahdo stationka waxaan ugu tegayaa St George kadib waxaan ka qaadan doonaa hadii Ilaahay idmo line 1 ayaa ikiin doonaa stationka weyn ee Union Station, halkaasoo aan ka qaadanayo tareenkii aan ku aadi lahay ama ii qaadi lahaa magaalada Toronto 550 kilomitir. tareenkaasaan ku socdaal doonaa ilaa hadda waxaan ku guda jiraa magaalada Toronto. hadda tareenka ayaan soo galay, tareenkaygaan ku dhex jiraa. waa line 2. tareenkan cabaara la sii soconayaa 14 stop ka bacdina waxaan ku tegayaa insha Allah St George ka bacdina waxaan qaadanayaa hadii Ilaahay ku idmahayo line 2 ilaa Union Station. hadda waa dhaqaaqnay, tareenkana wuu socdaa mardow insha Allah. isla socod wanaagsan. fadlan waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saarto channelka, like iyo share-na igu qabato. hadda waxaan imaaday oon soo gaaray St George, meeshii aan ku kala bedelan lahaa labada line ee line 2 iyo line 1. waxaan halkan ka qaadanayaa stationkan St George line 1, kaasoo ikiin doonaa Union Station. labadan tareen ayaan halkan ku kala bedelanayaa. oo kana hadda kii kaleetan dhankan kale ayuu isu istaagay. waa station weyn St George, marka isla socod wanaagsan insha Allah.
Waxaan hadda soo gaaray Union Station oo ah saldhigga tareenada ugu mashquulka badan Canada. Union Station waxaa la furay sanadkii 1927 waxaana loo dhisay inay isku xirto tareenada ka kala yimaada gobollada kala duwan ee dalka Canada. Maalin kasta boqolaal kun oo qof ayaa isticmaala saldhiggan waxaana ka baxa TTC, Co-Transit, Up Express iyo Freerail. Halkan ayaana ka bilaabaynaa safarkeennii Ottawa. Waxaa laga yaabaa inaad la yaabto, laakiin Union Station waxaa maalin kasta mara in ka badan 300,000 oo rakaab ah. Waa hadda maalin kasta, taasoo ka dhigaysa xarunta gaadiidka ugu mashquulka badan Canada. Dhismahan taariikhiga ah wuxuu jiray ku dhawaad 100 sano, wuxuuna weli yahay albaabka ugu weyn ee safarada tareenada dalka. Haddana waxaan u gudbi doonaa Freerail, laakiin wax yar waxaan u baxaynaa insha Allah banaanka, bal meel aan ka quraacda aan banaanka soo raadinaa hadday suurtagal ay noqoto. Stationkan waa station aad u weyn, aad u weyn. Waa magaalo dhan keligiis, kor iyo hoosna tareen ayaa socda. Ugu yaraan 5 qad oo tareen oo kala duwan meeshaan isticmaala 300,000 oo qofood oo rakaab ah oo tareenadaas kala raacaya, qaar gobollada u socda, qaar gudaha magaalada dhexdeeda u socdana way isticmaalaan. Waa 100,000 هذا يابس.
كبيرو دادويتك دخولو مديرو دادويتك دخولو مديرو كبيرو دمعاتي يا صوتيا دمعاتي يا صوتيا كبيرو دادويتك دخولو مديرو دادويتك دخولو مديرو كبيرو دمعاتي يا صوتيا دمعاتي يا صوتيا waa tahay saaxiibayaal maadaama safarku dheer yahay fiidiyoguna wuu dheeraanayaa marka qaybta koowaad waxaan noogu ekeynayaa Union Station magaalada cabaar ku warwareegay marka nagula raaxaysta magaalada Toronto oo cabaar aan ku wareejinayo insha Allah qaybta labaadna mar dhow ayaan soo teen doonaa la socda waxaan ka codsanayaa in fiidiyoga like ii saartaan channelkana subscribe ii saartaan waxa soo socda fiidiyo badan iyo vlogyo badan oo ku saabsan magaalada iyo guud ahaan dalkan Canada meelo badan ayaa mari doonaa insha Allah anigoo kaliya ah wheelchairkay ku socdo nagu raaxaysta magaalada Toronto iyo حبيب شرعي والدلا يا صوتي اسمعتي ذكرى doidake dukolo
مديرو دادو يدك دخولو مديرو إن كبيرو دمعاتي يا أسوديا دمعاتي يا أسوديا إن كبيرو دادو يدك دخولو مديرو دادو يدك دخولو مديرو إن كبيرو دمعاتي يا أسوديا دمعاتي يا أسوديا Wow,